Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaal ku saabsan magaalooyin ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweynaa adduunka, laakiin waqti ka dib baaba'ay ama dhammaaday. Taariikhda oo dhan, magaalooyin waaweyn ayaa horumaray, kadibna waqti dheer kadib baaba'ay. qaarna ma jiraan caddaymo badan oo muujinaya inay xitaa jireen. Si kastaba ha ahaatee, taariikhda oo dhan, magaalooyin waaweyn ayaa horumaray, kadibna waqti dheer kadib baaba'ay. qaarna ma jiraan caddaymo badan oo muujinaya inay xitaa jireen. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka tageen tilmaamo badan. sababaha ay ilbaxnimadu weligood u baaba'aan waxay ku salaysan tahay isbedelada cimilada, dagaallo, iyo musiibooyinka dabiiciga. waxaa jira waqti u muuqda inay lumeen ilaa laga helayo waxyaabo farshaxan ah oo dib u soo nooleeya. barashada xadaaradahaas hore iyo dadkii ku noolaa waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh. waa kuwan 5 ka mid ah magaalooyinkii baaba'ay laakiin waqti ahaan jiray magaalooyin waaweyn oo caalamka ka tilmaamay. magaalada Petra, magaaladan qadiimka ah ee ku taala koonfurta Urdun, waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Nabateyn, taas oo soo ifbaxday qarnigii 4aad ee Nabi Ciise kadib calayhi salaam. Petra waxay ahayd isgoys muhiim u ah ganacsiga xashiishka iyo basbaaska, halkaas oo ay ku kulmi jireen ganacsatada Roma, Greek, Masar, Hindiya iyo dadka Shiinaha. magaaladan weyn waxaa laga dhisay dhinaca waadiga loo yaqaano Musa Canyon oo ku taala dhanka koonfureed ee Urdun, iyadoo laga sameeyay buuro carro ah. waxaa kale oo ay lahayd nidaamka maareynta biyaha oo qaabaysan oo lagu dhisay marinada dhuumaha dhoobada ah. mid ka mid ah marinada wuxuu gaarayaa ilaa 5 mayl, waana tusaale cajiib ah ee injineernimada hydraulic. Petra waxaa soo maamulay boqortooyadii Roma. wadooyinka ganacsiga ayaa isla markiiba isbedelay, laakiin boqolaal sano kadib dhul gariir ayaa waxyeeleeyay nidaamka biyaha. Petrana waxay noqotay mid burburtay oo laga tegay. waxaana dhawaan helay 1912 dhul mareenkii Johann Ludwig. magaalada labaad waa magaalada Machu Picchu. magaaladan dib ayaa loo helay 1911. Machu Picchu ayaa qarsooneed qarniyo badan. waxay ka sarreysaa dooxada Urubamba ee dalka Peru, sidoo kale loo yaqaan magaalada Lost Incas. Machu Picchu lagama arki karo hoosta, maadaama ay ku taal buur dusheed oo ay ku hareeraysan yihiin dhul beereed. waqtigeedii wacnaa magaaladu waxay ahayd mid ka mid ah xarumaha dhaqanka, siyaasadda iyo diinta ee boqortooyada Inca. waxay u qaybsantahay 2 qaybood, waxayna leedahay macbad qoraxeed qadiimi ah. Machu Picchu waxaa loo qoondeeyay inay noqoto mid ka mid ah goobaha dhaxalka adduunka. magaalada saddexaad waa magaalada Bombay. sheekooyin aan dhammaad lahayn ayaa laga sameeyay musiibadii Bombay, taas oo dhacday Agoosto 24 sanadii 79 taariikhda AD. taasi waxay ahayd maalintii uu volcanic Vesuvius u qarxay. muwaadiniinta deganaa magaaladan nasiib darro sinaba uguma diyaar garoobin. magaalada oo dhan waxaa si degdeg ah u qariyay dambas iyo carro.
waxaana lagu qiyaasay in 2,000 ilaa 16,000 oo qof ay ku dhinteen magaalada, taas oo muddo kadib ka dhigtay in lafihii dadka dhintay ay ka soo muuqdaan daafaha magaalada. qof kasta oo ka badbaaday qaraxa volkaanada waa uu cararay. waqti kadib Bombay si dhaqsi ah ayaa loo ilaabay. goobtan ayaa la qoday qarnigii 18aad. caddaymaha la helana waxay si faahfaahsan uga hadleen nolol maalmeedkii magaaladan qadiimka ah ee dalka Talyaaniga. magaalada afraad waa magaalada Teotihuacan. Masarta qadiimiga ah waxaa lagu yaqaanaa ahraamta soo jiidashada leh, laakiin magaaladan qarnigii 2aad ee taariikhda BC, Teotihuacan xaqiiqdii waa mid cajiib ah. waxay ku taallaa meel 30 mayl ka baxsan magaalada Mexico. waxaa loo malaynayaa in la dhisay qiyaastii 400 oo BC ama dhalashadii Nabi Ciise kadib. waxay ahayd magaalada ugu saameynta badan uguna awoodda badan gobolkeeda. waxaa lagu dhisay qaab dhismeed cajiib ah oo daboolaya 8 mayl, waxayna ahayd guriga ilbaxnimada. waxaa jira macbadyo qadiimi ah, daaraha waaweyn, palaces, guryo dabqi ah oo ku yaala sidoo kale halkan. inta badan taariikhda magaaladan ayaa ah weli mid qarsoodi ah, laakiin qaar ayaa aaminsan in hoos u dhaca magaalada uu ka yimid xaaladaha cimilada isbedelaya sida abaaro muddo dheer ka jiray magaalada, taas oo sababtay inay nolol ahaan dugmato magaalada Teotihuacan. magaalada shanaad waa magaalada Ctesiphon. qaar ka mid ah ilbaxnimadii hore adduunka waxay ku yaaleen Mesopotamiyada hore ee galbeedka Aasiya. maanta gobolkani wuxuu ka kooban yahay qaybo ka mid ah wadamada Suuriya, Kuwait, Ciraaq iyo Turki. qarnigii 6aad mid ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweyn waxay ahayd Ctesiphon, taas oo ku taala meel 20 mayl ka baxsan magaalada Baghdad. waxaa qabsaday boqortooyadii Rome, kadibna waxaa qabsaday boqortooyada Byzantine. sanadii 637 miilaadiga waxaa qabsaday muslimiinta markay islaamku furteen deegaanada Faris, laakiin hadda wax yar ayaa ka haray magaalada Ctesiphon marka laga reebo